السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما صومالي ذا بالكسو عرورة فيسبوك كسو عرورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام دمانتين دادك صاحبة ولا لها فانسكا دمان انت مقال كيغا اي مقال كيغا تقانو وان إذن السلامي waxaan rabaa inaan ka hadlo arin yar oo xasaasiyo maxaa la isha shalay ilaa habeen hore ilaa maanta qabsatay Facebook oo wax saas u sii weyn aan ahayn oo muhiim yar inaan ka hadla rabaa soo waa ina soo wada gashaan moodo joogtaan mana i maqashaan 300 ku jirta hadda soo wadan galay okay waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta maxaa la isha sanad guurada arooskayga oo aan sameystay xalay habeenkii ka horeeyay maxaa la isheeg oo hal sano ka soo wareegtay xaflad baa sameysanay anigii xaaskayga maxaa la isheeg xafladii bay dadka maxaa la isheeg inta ugu badan dadka ay hadal hayeen waxaan rabaa inaan arintaas wax yar oo maxaa la isheeg muhiim inaan idin ka dhaho dadka i daawanayo dhan waxay tahay arintaas yar oo muhiimka oo rabay inaan idin ka dhaho maxaa la isheeg horta xafladda waxa aan anaga dhiganaynay waxay ahayn aroos waxay ahayn sanad guuro maxaa la isheeg wax aroosna wax ma dhaamin waxay sanad guuradeeda koowaad arooskayga kale ahayd oo anaga markaa is aroosna wax xaflad iyo maxaa la aroos iyo waxas maanan dhigan oo wax markaas oo muhiimna lama sii noqon laakiin waxa muhiim nala ahayd inaan xaflad dhigano oo maxaa la isheeg sanad guuradii baan dhiganay sanad guuradii maxaa la isha waqti fiican baan ku wada qaadanay waqti maxaa la isha qurux badan baan ku wada qaadanay waqti ma sha Allah oo laga sheekay baan ku wada qaadanay sida darteed waxa dhacday sawir in laga soo qaaday sanad guurada anaga aan dhiganayno waxaan sameeynay maxaa la isha toortadii baan afka isku galinay waqtiga toortada markii la gaaro waqtiyada ugu dambeysay ahayd toortada markaan afka isku galinay maxaa la isha waxa dhacday inaan is shumino oo hal mar aan is dhunkano taasi marka macno weyn ma ahan ma keenayso macno gooniya oo laba qof oo nin iyo xaaskiisa ah ee isqabo ee awlaad leh ee maxaa la sanad guuradii arooskooda iyo farxadoodii iyo maxaa la isheeg meeshan u jooga inay waqti qurux badan wada qaataan weligood baa inta reer magaala iyo inta Soomaaliya iyo dadka dhaqankeenan maxaa la isheeg yaani aroosyada la yaqaano ay wada og yihiin in maxaa la dhahay isheeg ninka iyo naagta isqabo markay maxaa la isheeg toortada jaraan inay afka iska shumiyaan ina afka iska shumino wax macno gooniya oo maanta iyo ceeb gooniya iyo maxaa la isheeg wax madaxa la qabsado oo acuudu billahi minash shaytaan rajiim la dhaho oo maanta laga wada yaabo oo ah oo gooniya ma jirto maxaa la isheeg aniga naagtan shumiyay ama gabadha aan shumiyay ma aha gabar islaameed ma aha naag aan wada iska soo raacnay ma aha naag maxaa la isheeg oo islaameed oo maxaa la isheeg oo friends aan ahay waa xaaskayga xalaashi ahayd haddaan afka ka shumiyo intaan toorto jarno anagoo farxad ku jirno maxaa la isheeg haddaan afka iska shumino wax macno gooniya oo maxaa la isheeg oo ma keenayso ceeb gooniya ma keenayso sidaa darteed maxaa la waxa rabaa dhalinyarada qaladka aamintay faaniska ah ee walaalaha ah ee dadka Soomaalida oo dhanba maxaa la ishay Facebook wada inaan u sheego in arintaasi ayada ah ay ahayd wax markaasi inaga markaan isku imaanay ee toortada aan jarnaa hal mar afka iska shumina weligeedii Allahdaan la arki jiray dad isqabo oo dadka ama aday aroosiin ama haddii sanad guur dhiganay ama haddii farxad ka dambeysay inay dadku maxaa la ishay markay toortada jaraan waqtiga toortadooda la gaar inay hal mar afka iska shumiyaan si caadi ah maxaa la ishay xafladooda ugu soo dhamaato marka waxa la sameeyay waxa laga soo duubay videogaas hadda wax idin leeyahay videogaas wax maxaa la isheeg waqti saas u sii dheer ma uusan ahayn soo wuxuu ahaa videoga markaan toortada saas u jarnay hal mar baan dhac sina waa sii kala tagnay sidaas baa waxa laga dhigay videoga baa inta la soo qabtaa waxa lagu furay story oo maxaa la isheeg in waxa laga dhigay wixii 10 daqiiqo ay yihiin oo isku soo dhawaanayaan ee hal mar afka isku haayaan ee isdhuuqayaan ee haddana maxaa la isheeg sii kala tagaan wax dhuuqmal la horta meesha ma oolin maxaa la isheeg waxa sina waa anshax daro waxa idinka anshax daro ka dhigaysan dhuuqmada ay sheegaysan waxa sorto wax meesha yaala iyo wax meesha ooli karayba ma ahayn shumis yar u ahaa sidaas taasna farxada naga keentay wax oo maxaa la isheeg maanta oo saas u sii weyn nin yahow xaaskaaga maxaa u shumisay nin Kacbe iyo Madiina gubay maxaa la isheeg nin Madiina gubay
aniga iga dhigan waxa ah nin maxaa la isha waqtigaas maxaa la farxadeed hal mar xaaskiisa shumiyay wax weyn taas ma keenayso marka halka dhib ee ugu weyn ee meesha ka taagan baan rabaa horta inaan hal mar idin sheego waxaa jira oday maxaa la isha waalan oo jinni ku dhacay gabadha ama siiyo maxaa la horta oday jinni ku dhacay jira oo waalan oo ilaahay cadaabkaas ilaahay horta cadaabka waaba geenayaaba oo maxaa la isha qaatumadii gabyay maxaa la isha asagii oo dhan wuxuu ku soo aruuray inuu maxaa la ciyaalka u dhali karo har iyo habeen oo la tirsado oo maxaa la isha u la caytamo marka waa odagii la dhahdaaray caliso maalin hore waxaan sameeyay runtaan ka sheegay intuu yimid aan runta ka sheegay wallaahi oo billaah inaan been idin sheegay wuxuu gaaray heer dhalinyarada saaxiibada aan ahayn oo isla soconay inuu midba maalin intuu soo waco uu yiraahdo hey assalaamu calaykum wa calaykum assalaam hebel ma tahay haa waa aniga waa daahirkii asaga ah haye maxaa u baahneed walaalo waxaan rabaa inaan arrin ii jisho maxay tahay arrintan kuu jilaayo inaad samayso maxaa la ii sheeg ninka dayax la yiraahdo soo saaxiibo matiin haa soo best friends matiin haa waxaan rabaa inaan u dan sheegato si beena inaan maxaa la ii sheeg ugu dan sheegato oo aad tiraahdo maxaa lahaa waxaan rabaa inaan dayax kula noolaado oo gurigaaga joogo oo anaana waxaan ku siinaa bil kasto waxaan ku siinaa ii sheeg biilkaaga iyo maxaa la ii waxa ku noolaan lahayd aan ku siinaya waxaan rabaa inaad gurigiisa inta tagtid oo maxaa la waqtiga nasiinada ama sida caadiga guriga filimka la daawanayo ama halka nigiska uu wato ama waxaas uu wato inaan sawir iiga soo qaadi oo sawirkaas iiga soo dirtid ninkaas dagaalo igula jiraa saan u yeelay waxaan rabaa inaan maxaa la ii sheeg dadka aan ku ceebay inaan saas yeelo horta adeer ilaahay ku naxariisto ilaahay qaatumadaada ku soo celi ilaahay ha ku maxaa la ii sheeg wixii dhibka ku haysto dhib baa ku haystee ilaahay ha ka dulqaado wax kale oo ka hadlaya ma jiraan arrinta muhiimadda ahayd oo maxaa la ii sheeg dhalinyarada qalad ka fahantayna walaalayaal gabadh asxaaskayga ahayd hal mar baan issuminay waxaan sameynaynay waqtiga toortada la jaray ee farxadeena ahayd soo maahan muhiimadda aan fiidiyoga soo galay oo fiidiyoga soo duubay intaasay ahayd arin waxaan rabay inaan idinka jaahil bixiyo maadaama aan wax badan maxaa la isha isku wareer social media ay wadwadeen waa mahadsantiin idinkana ilaahay ha idin sharfo ilaahay ha idin karaameeyo khayr allah idin siiyo waana mahadsantiin mac salaam